kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad naga daawataan waa barnaamijkeeni socdaalka Royal oo alaaba idinka soo qaadano waxyaabaha ugu cajaa'ibsan barnaamijkan wuxuu idinka yimaadaa studio Royal 24 ee bariga Sacuudi Arabiya waxaan idin daadiyaa anigoo ah Cawil Cagaare waxyaabahan ku soo qaadana waxa kamid ah waxyaabo idinka idin naxdin gelinaya marka aad daawataan aad oranaysaan yaan mar dambe noogu soo celin laakiin wadna weydii soo deyn doonaa maxaas idinka dambeeya waxaan idinku xajin doonaa waxyaabaha aad idinku qosliya ama qofka maskaxdiisaba furfura markasta waxaan ugu talagalay socdaalka Royal anagoo sidana kamaradayada in aan adduunka oo dhan waxyaabaha ugu cajaa'ibsan aan idin soo gudbino yaa sheekada idinka hor dhicin maanta waxaa ku beegan kala wareegii sanadka 2013 iyo soo gelistii 2014 waxaan caawa idin soo qaadanaynaa ama maantaba dhacdooyin aad u fara badan haba inoo kala duwanaadeene waxaan ku bilaabaynaa horta markasta waxaan idin xasuusinaynaa barnaamijka waxa idin daadiya anigoo ah Cawil Cagaare waxaan idin ka yimaadaa studio Royal 24 ee bariga Sacuudi Arabiya markasta wixii ku cajab geliya ama ku farxad geliyo ama ku naxdin geliye waxaad noogu soo diri kartaan emailka asaashada ku aragtaan dhacdooyinkan idin kala baxo balse maxaan caawa ku bilownaa dhacdada ugu horeysa aan soo qaadanayno waxa kamid ah adduunka oo dhan waxa ka jira sportsku nooc badan yahay wana kala duwan yahay waxaan soo qaadanaynaa maanta orgi ariga qaybtiisa lab oo loo yaqaan orgi wuxuu dhabarka ku sitaa daayeer waxay ku tartamayaan isagoo dhabarka saaran yahay 3 mitir meel dhulka ka sareysa oo xarig ah orgiga ayaa wada tartankaas uu kula jira orgigi ka dhaca waa laga raayay ama waa laga badiyay daayeerka iyo orgiga iswata iyo tartankan ay ku jiraan bal idin kala baxo dhacdada ugu horeysa ee daawasho wacan Неужели козленок пойдет? Не может быть. Не может быть. Я не верю. Неужели козленок пойдет? Слушай. Вот это да. Вот это трюк, слушай. Слушай, это вообще... Обалдеть, слушай. Ну да, по проволоке, да. Это вообще... Такого трюка никогда еще не видел. Смотри, сейчас еще более сложный трюк, смотри. Человек не может пройти, правда? Смотри, что сейчас хотят сделать. Неужели перевернется? Слышишь? 108. 1,80 м высота. Неужели перевернется, а? Вот это трюк, ребята. Обалдеть. Это в книгу Гиннесса надо заносить, да? Вот это козел, а? Подгоняет, ага. Обалдеть. Обалдеть. Браво, просто браво. Он еще поднимется, слушай. Сейчас задние копыта хочешь поднять. Смотри, смотри внимательно. Представляешь, какой трюк?
И мартышка еще там, и мартышка еще. Трюк делает. Вот это да. Еще поворачивается. Обалдеть, слушай. Скажи, Алён, такой вообще. Обалдеть. Вот это да. Вот это трюк, я понял. Нет слов, не говори. Обалдеть. Обалдеть. 如果说上山有简单的山羊，你可以往下下单。 waxaan u malaynayaa taana inay ahayd dhacdadii ugu horreysay aad daawataan orgi iyo daayeer iswataa oo markii ugu horreysay ku tartamaya meel 3 mitir ka sarreysa daawadayaal markasta waxaan idin xasuusinaa dhacdooyinkayagu midba midda ka dambayso kasi naxdin badan laakiin ta ugu dambaysa waa mid idinka soo celin karta naxdintii badnayd idin loosiin karta laakiin farxadna idinka dambayso dhacdada labadan soo qaadanayno waxaa kamid ah isbuucii hore waxaan idiin soo qaadanay ilmo yar oo isagu dhabarka labadiisa garab ku kaxaynaya gaari balse maanta waxaan idiin wadnaa timaha gaari 3 tan ah lagu kaxaynayo timaha sheekadu waxay ku beegan tahay rumayso ama rumaysan aan idiin kala baxo timahan lagu kaxaynayo dhaynaha 3 tan ah ee daawasho wacan الجمهور كله عم بيزقف بقلب الاستوديو. أليكس رياشي عم بيزقف يشيل كاميون 6 طن. يا عطرة يا رب برافو برافو يلا أليكس برافو أليكس يلا أليكس برافو أليكس يلا markaad daawatid waxaad is oranaysaa waxna waaba been laakiinse waa dhacdooyinka dhaca ee xaqiiqda ah ee tartamada lagu galo ayay kamid tahay dhacdada ku xigtaan idiin soo qaadanayno waxaa kamid ah dhacdooyinka laftigoodu ma kala dhacaan midba mid ka yaab badan waxaan soo qaadanaynaa caalamku intuu horumar gaadhay waxaynu arki jirnay marka wadan kale la oranayo alaabaha loo diro waqtiyo badan siyaabo badan baa loo soo maray oo kala duwan baa alaabaha la isugu diraa balse hadda waxaan soo qaadanaynaa dukaan marka isaga alaab laga dalbado wuxuu leeyahay bahal yar oo electriga oo diyaarad yar oo kale ah oo loogu talagalay in adeega loogu gudbiyo meeshii laga soo dalbaday diyaaradda yar ama waa electrigan yare alaabtii laga soo dalbaday waa delivery free ah markaa alaabtii waa la saarayaa remote baa lagu dirayaa gurigii laga soo dalbaday si usii socdo baa albaabka geynaya waa waxyaabaha ugu yaabka badan adduunka waana dhacdooyinka hadda
ugu horeeya aan ugu talagalay inaanu idii soo qaadano aan horey dadku arag waana 2013 waana dhacdooyinka ugu yaabka badnaa ayay kamid tahay dukaankan iyo qalabka uu wato iyo siyaabaha kala duwan ee deliveryga ugu gudbiyaan bal aynu daawano waxaan malaynayaa qof kastoo arka isagoo gurigiisa jooga inuu dalbanayo baasha ay rooranayo soo saar baasha yareed ee alaabta wadayba waana dilfiiriyada freega ah ee caalamka waxay isugu gudbiyaan daawadayaal markasta waxaan idin xasuusinaa emailka shaashada saaran maxaa ku cajab geliyey ama kaa yaabiyeyba waad noogu soo diri kartaa emailka shaashada saaran dhacdooyinkan caawa idiin hayno ma kala dhacaan midba mid ka daran dhacdada kalaan soo qaadan waxa weeyaan adduunka qofba meel buu dalxiis tagaa qof kasta meel u jecel yahay dalxiis tagaa waxaan soo qaadanaynaa dhurwa ama waraabe laami dhinacii iska maraya dad ayaa usoo dalxiis tagay aagaas gaari bay wataan dadkani kamaradna waa sitaano waxay is oranayaan bal waraabahan muxuu sameynaya haddaad istustaan waraabihii way istusayaan wuxuu isku dayaa waraabihii gaadhiga ku jabiyaba waraabihii laftigiisii gaadhigii meel uu ka qabsadi waayaya laakiinse way ka dhaqaaqayaan waxaase soo raacda waraabihii libaax isaguna meel goob isaguna loo dalxiis tago ayuu arkayaa gaadhi dad wata gaadhigii buu qabsanayaa muraayadda jabi buu soranayaa dadkiina qaarkood wayba yaabayaan aan idii kala baxo waraabuhu muxuu samaynayaa libaax xuseen sidee buu gaadhigu uga baxsanayaa ee daawasho wacan Sniffing the window, trying to bite me. I'm trying to get rid of him now. Daar kunnen ze stil blijven. Kiefst. Door het is afgestemd. Wiper af. Nee. Stijn, stoot je elkaar? daawadayaal waxaan malaynaya waa dhacdo aad iyo badan ama qosol leh dadkiina dalxiisayo dadka qaar way sahladaan wax isdhaan waraabu waxa ma sameeyo ama libaax waxa ma sameeyo balse iska digtoonaado marmar buu jabiyaaba muraayada iyo ugu soo galaaba dadka daawadayaal markasta waxyaabaha aan idii soo qaadano midba mid ka yaab badan kuwa hore waxaan malaynaya inay aad idinka nixiyeen asoran sabtaro waxyaabaha maskaxdiina maxay ka bedeli karaan hadda waxaan soo qaadanaynaa qof isagu nool oo tartan ku jira seef aad aragteen ayaa loo dhigayaa inta qofka la qaado ayaa dhabarkiisa seefta loo saaraya seeftu marka hore qofku wuu korayaa dhabarkiisu laakiinse ma mudaso marka hore cabaar markuu joogo sekamo ayay seeftii qofkii dhex gelaysaa miyuu dhintay qofkaasi mise waa nool yahay bal idinka yaabi doonee yaan idinka hor dhicine daawasho wacan
Shouts to all my lost boys. 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 daawadayaal waxaan malaynayaa dhacdadaas inay dhacdo xanuun badan dadka daawanaya laftigoodu way yaabayaan muxuu sameynayaa seebay seeftu u galaysaa waxyaaba badan bay is oranayaan marka daawadayaal waxaan idin leeyahay dhacdooyinkan maanta idiin soo hadno midba mid kama dhacdo dhacdada kale aan maanta idiin soo qaadanayna waxaa kamid ah dadku siyaabo kala duwan ayay sportsyada ugu ciyaaraan laakiinse marka xayawaan ciyaarayo dadku way la yaabaan miyaad aragteen weligiin ay isagu ama dhowr ay oo tartan ku jira muusig baa loo shidayaa iyagaa dhaansigooda ciyaartooda jaaskooda ciyaaraya balse bay iskula qabsanayaan labadan ay jaaska iyo tartankani ku jiraan yani idinka hor dhicin ee daawasho wacan dadka qaar baa markay maqlaan daawadayaal muusig baa baxaya iska murqaamayo isruxayaba laakiin eedan laftigood muusigii iyagii baa bartay sidii loogu barayay bay ku tartankaba ku galeenba qaarkood waaba ku baasaan qaarkoodna waaba ku dhacanba laakiin dee qof kasta isagaa yaqaana markuu soo tababarto waxyaabuu shirka la imaanayo daawadayaal waxaan idiin soo qaadanaynaa xayawaanada ugu weyn waa maroodiga dad baynu arki jirnay marka la yiraahdo qofka off baa haya ama jimicsi buu u baahan yahay ama masaaj buu u baahan yahay qof loogu yeedho lino hebel oo kaalayo masaajka ka saar weli maad aragteen maroodi qof isagu masaaj ka saaraya waa dhacdooyinka ugu yaabka badan ama markaan daawaday ugu naxdinta badan yaan idinka hor dhicin maroodigan sidee buu qofka masaajka ugu sameynaya idinkaa yaabaye bal daawasho wacan Smiling. She like her. waxaan oran lahaa baanigu maba aamineenba maroodi bal qofka aaminay ka warramay idinku maroodiga oo dhacdooyinka ugu yaabka badan adduunka daawadayaal markasta waxaan idin xasuusinaa emailka shaashada saaran idin ilaawi wixii ku cajab geliya ku naxdin geliya ku farxad geliya waad noogu soo diri kartaa si aan daawadaha kale ugu soo gudbino wixii aad adigu la yaabtay ama ku farxad geliyey ama ku cajab geliyeyba daawadayaal iminkan waxaynu soo qaadanayna waxaynu arki jirnay magnetka biraha qaar buu ku dhagaa
biraho dhan kuma wada dhigo waa biro khaasa ama gaara buu ku dhigaa miyaad aragteen qof isagu jirkiisu magnad yahay saxan baa la soo qaadayaa waa la saaraya waa ku dhigayaa malqacad baa la soo qaadaya waa la saaraya waa ku dhigayaa waa ilmo yar waana abuurta ilaahay inanka yar ee jirkiisu magnadka yahay iyo siyaabaha jirkiisu u qabsanayaan waxyaabahan kala duwan iyo daawasho wacan. A boy in Serbia may possess more than just a great personality. He may in fact be magnetic, in the literal sense. 7-year-old Bogdan's family claims the youngster's body is magnetic and everything from silverware to remote controls seem to stick to him. They say that when the child takes off his shirt, items around the house clamp onto his chest and will stay there until Bogdan removes them himself. But it seems this sticky situation is not limited to just metal. His father claims that plates appear to be drawn to him as well. The family says little Bogdan has been this way since he was born, and he can't go near items such as a computer or they... Subhanallah, been orakana waxyaabaha adduunka ku cajaabsan iyo abuurta Ilaahay weeyaan. Iminkan waxaan soo qaadanaynaa daawadayaal waxaan soo gaarnay horta gabagabadii laakiin waxaan soo qaadanaynaa waddanka Nepal markay neefka gowracayaan ama xoolaha ay gowracayaan dadka islaamka siyaabo gooni ah u gowracaan midi baa la soo qaadaa si yar wanaagsan baa loo gowracaa laakiin waddanka Nepal sidee ayay u gowracaan xoolaha iyagoo welibana seef intay soo qaataan neefka la qabanay korka lagaga jarayo yaani idinka hor dhicin sheekada waxyaabaha caqliga gala laakiinse waddanka Nepal ayaa dhaqankiisu sidaaya bal sidii xoolahan u gowracayaan idinka yaabaye ee daawasho wacan. waddanka Nepal ayaa ah wadamada sida gaarka ah ay xoolaha u gowracaan waxaana ka mid ah dhacdadan aad arkaysaan waa neef xoolo ah waxay soo qaadayaan neefkii iyadoo aan dhinacna loo jihayn ayay surka seefta kaga jarayaan waana waxyaabaha kaliya ay goonida kaga yihiin wadamada Aasiya. waddanka Nepal ma wada aha muslim laakiinse waxaa badan inta haysata diinta Hinduuska in yar oo 2% ah ayaa haysta diinta Islaamka. marmarka qaar dadku waxay dhahaanba waddanka Nepal dhammaantood muslim iyo gaalaba waxay u gowracaan sida tan xoolaha waana waxyaabaha kaliya ee lala yaabo. qof bili aadan ah ama gaal ha ahaado ama muslim ba ha ahaado markay arkaan in sida loo gowracayo neefka ama sida surka looga jarayo waa waxyaabaha kaliya ee lala yaabo. qofka kristanka lagama yaabo inuu neef xoolaha sidaa u soo qaado oo surka seef kaga jaro. daawadayaal markasta aynu barnaamijka soo gabagabeynayno ama aynu soo xidhanno waxaan soo qaadanaa waxyaabaha ugu qosolka badan maadaama aynu daawanay waxyaabo kala duwan oo naxdin badan inagu wadnaha furta ku haynay balse maxaan idinkaga qoslinaynaa waxaan soo qaadanaynaa in yaroo Masriya oo isagu Qaahira oo dhanba ka wada qosliya qof kastana markuu arko intuu ka naxiyo markuu arko qosla isaguna waa ka carara bal idinka qoslinay bal ilmaha yari wuxuu samaynayo daawasho wacan.
daawadayaal barnaamijkii aan ugu talagalay socdaalka royal waxaan markasta kusoo gabagabaynaa sheekada qosolka ah aan ugu talagalno dadku inay ilaawaan waxyaabihii naxarinta lahaa daawadayaal barnaamijkani markasta waxaad ka yimaadaa stuudiyaha royal 24 ee beriga sacuudi arabiya waxaana idiin daadiyeya anigoo ah Cawil Cagaare intaynu barnaamij lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo kulanti dambe